soo dhawaanaya gudaha garoonka suu ciidamada kala duwan ee baanbeeda salaan uga qaato si rasmiyana ciyaarta u furo ayaa madaxweynuhu u soo gaadhay isagoo xidhan dharka isboortiga ama ciyaaraha waxaanu cuqdaan ka qaadanaya cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland salaanta qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu si rasmi ah uga qaatay salaan cutubyo ka tirsan ciidamada baanbeeda iyo booliiska ee Soomaaliland kuwaasi oo uu si rasmi ah ciyaarta u furi doono waxaa hadda si rasmiya u soo mari doonaa garoonka xulalka kala duwan ee kubadda waxaa hadda markaasi loo diyaar garoobayaa in xulalka gobollada Soomaaliland ay si toosa u soo maraan dhammaantoodba iyagoo astaantooda iyo xulka qaranka ee ay ka socdaanba ay ku wareegi doonaan garoonka waxaana ay mari doonaan garoonka iyagoo markaasi xul walba u dhammaystiran yihiin ciyaartooyadii uga qayb geli lahaa tartanka kubadda cagta ciidamada baanbeeda ayaa horkici doona iyadoo ay calanwadayaashu ku xigaan waxaa horkacaya calanwadayaasha iyo garsoorka kala duwan ee markaasi kubadda xulka kubadda cagta ee gobolka saaxil xulka kubadda cagta ee gobolka saaxil ayaa u soo horeeya oo ah xulka ka qaybgelaya ciyaarahan gobolka saaxil waxa ay marayaan garoonka si ay markaasi u muujiyaan sida ay ugu soo diyaar
ruuxantii haddii lagu garab istaago oo lagula socdo oo laga warhayo waxyaalo fara badan ayaa ku hirgelaya. gobolka Sanaag ayaa daba socda oo iyaguna taariikh ku leh dabcan marka loo eego dhinaca kubadda cagta ee gobolada Soomaaliland ay ka hidaha iyo dhaqankii ay xidhan yihiin iyagoo oo soo jeeni qaartay guucasa ee gobolka caan ku ah waxay xidhan yihiin markaasi garamaan cadad iyo hidaha dhaqankii goor dhoobay xidhan doonaan isboortiga laakiin waa gobolkii awiyasha oo taariikh badan ku duugan tahay gobolka awiyashu waxa uu muujinayaa inuu yahay gobol taariikh weyn ku leh dhinaca faca iyo taariikhda waxayna xidhan yihiin hidaha dhaqankii waxa ku sii xiga oo daba socda iyaguna markaasi oo soo socda gobolka awdal oo barisaabkooda iyo mas'uuliyiintooda horkacayaan xulka uga qayb geli doona tartankan gobolada Soomaaliland ee 2020 waa xulka gobolka awdal qaybaha uga qayb geli doona kubadda cagta iyo ciyaarahaba xulka gobolka awdal oo fanaanad ay ku xardhan tahay calanka Soomaaliland ee cadaanka iyo buluuga xidhan xulka gobolka awdal ayaa maraya iyadana sacab ay ku soo dhaweynayaan dabcan tarabuunku oo xulka iyagana maraya ee daba socda ay yihiin markaasi waxa wali socdo xulalka qaranka ee gobolada Soomaaliland u safanaya waxa ku sii xiga xulka gobolka Daadmareed ayaa iyaguna soo socda iyagoo xidhan markaasi dabcan fanaanad cadaana oo ka qayb galaya gobolka Daadmareed xulkiisa kala duwan tababarayaashooda suudayaasha ciyaaraha dhammaantoodba ayaa socda iyagoo ka qayb galaya tartanka kubadda cagta iyo waliba basketka ee qaybaha kala socda si toosa xulalka socda maraya waxa ka mid ah xulka gobolka Sool sida isugu xigaan xulalku ayaan yeedhinaynaa xulka gobolka Sool ayaa maraya oo iyaguna ka mid ah xulalka qaranka ee markaasi maraya Sool waxa ku sii xiga gobolka Hawd ayaa isaguna maraya xulka gobolka Hawd oo markaasi isaguna tartanka fanaanadaha madow xidhan oo ka qayb galaya markaasi tartanka
xulka gobolka hawd isla maanta ciyaari doonaan iyagaana tartanka wareegooda u dambeeya waxa ay sameeyeen wareegga ay kaga qayb gelayaan ee xulalka kala duwan ee qaranka Soomaaliland maanta ayaanay ciyaartu halkan ku dhex mari doontaa haddii la yidhaahdo xulalka kala duwan dhammaanba hadda waxaa soo wareegay xulalkii kala duwanaa oo salaan ka qaadanaya baambeyda ciidamaduna horkacayeen waxaa soo wada maray dhammaanba xulalka halkan ay ku dhex mari doonto ciyaartu ee markaasi gobollada Soomaaliland ee taariikhda weyn ku leh dabcan marka loo eego tartanka kubadda cagta ee maanta halkan si rasmi ah uga furmaya waxa uu Soomaaliland ku leeyahay taariikh fara badan marka la eego markii ugu horeysay ee ciyaaraha tartanka gobollada Soomaaliland ay furmaan waxa sanadii 2002 18 sano ka hor ayuu si rasmi ah isla garoonkan ciyaarahaasi uga furmeen waxaa 7 jeer ayaa ciyaarahaasi ay qabsoomeen oo ciyaartan maanta ay markaasi 8 ku tahay 5 ka mid ah waxa ciyaarahaasi ka qabsoomeen isla garoonkan maanta aanu si toos ah idinka soo gudbinayno iyadoo hal ciyaar lagu qabtay magaalada Burco halka kalena lagu qabtay magaalada Boorama sanadii 2002 ciyaarihii dhex maray waxa si rasmi ah ugu guuleystay oo markaasi final isugu yimid gobolada Maroodijeex iyo Togdheer waxa ku guuleystay koobkii koowaad ee gobolada la dhigo xulka gobolka Maroodijeex oo markaasi qayb ka ahaa mar labaad ayay ciidamada baambeydu soo noqdeen iyagoo weli ciyaartooyadii hor kacaya waxa maraya ciidamada baambeyda koobkii koowaad ee 2002 la qabtay gobolka Maroodijeex ayaa ku guuleystay sanadkii xigay ayaa koobka labaad la qabtay iyadoo gobolada Togdheer iyo Sanaag ay final isugu soo baxeen koobkii 2003 waxa ku guuleystay gobolka Sanaag sanadii 2004 ayaa iyadana koobkii labaad ee xidhiidha markaa saddexaad la qabtay gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa isugu soo baxay gobolka Sanaag ayaa markaa ku guuleystay koobkaas sanadii 2007 ayaa iyagana final ay isugu soo baxeen koobkii la qabtay gobolada Togdheer iyo Awdal waxa ku guuleystay gobolka Togdheer sanadii 2011 ayaa iyagana final waxa isugu soo baxay koobkii la qabtay gobolada Maroodijeex iyo Hawd waxaana ku guuleystay gobolka Maroodijeex sanadii 2000 final isugu soo baxay iyadana gobolada Maroodijeex koobkaasi ay ku guuleysteen sanadii 2016 koobkii ugu dambeeyay waxa isugu soo baxay gobolada Awdal iyo Saaxil waxaana ku guuleystay gobolka Saaxil marka la eego ciyaarahaasi waxa koobka ugu faraha badan leh ee koobka Jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intii la qabtay haysta 3 koob gobolka Maroodijeex oo inta ugu faraha badan leh kubadda marti gelinaya halka Togdheer oo iyaguna dabcan markaasi sanadii 2003 iyo 2007 ku guuleystay xulka gobolka Sanaag ayaa isaguna hal koob markaasi haysta waxa sidoo kale isaguna hal koob haysta gobolka Awdal marka la eego taariikhda ay kubaduhu leeyihiin intii ka horeysay dabcan sanadii 2011 waxa ka qayb galay 6 gobol ee waaweyn 6 gobol ee waaweyn iyo Gabiile oo kala ahaa gobolada markaasi Awdal Maroodijeex Saaxil Togdheer Sanaag iyo Gabiile sanadii 2011 ayaa lagu daray Soomaaliland inay ka qayb galaan tartanka waxaana markaasi ku soo biiray gobolada Hawd Buuhoodle Baran Saraar Xaysimo Daadmareer iyo Salal kuwaas oo gobolka marka la eego Hawd markii ugu horeysay ciyaaraha ku soo biiraba uu soo gaaro final markaasi waxa ugu badan ee ciyaaraha final soo gaaray ee laga guuleystay waa gobolka markaasi finalka gobolka Togdheer 4 jeer ayuu soo gaaray finalka 2 jeer oo kamida koobka ayuu la caraabay 2 jeer oo kamidana waa laga qaaday Maroodijeex ay 3 final timi 3 jeerna ay ku guuleysatay Sanaag 2 jeer ay koobka qaadeen marna waa laga qaaday halka gobolka Awdalna 2 jeer ay yimaadeen oo marna dabcan markaasi laga qaaday gobolada Saaxil iyo Hawd
jamhuuriyadda Somaliland waa tartankiisa tartanka ciyaaraha Somaliland tartankii jamhuuriyadda tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland Cabdirasaaqow maanta jawigiisu aad ayuu u fiican yahay garoonka Hargeysa Stadium ee caasimadda Soomaaliya Hargeysa ayaa si toos ah hadda ay nooga daawanayaan dadweynaha kala duwan ee caalamka ku sugan shaashadaha kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa isagu ka qayb galay isla markaana ku sugan garoonka Hargeysa Stadium ciyaaryahanada uga qayb galaya tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland oo 14 gobola ayaa iyaguna dhammaan ku sugan garoonka waxaana ay muujinayaan markaasi dareen wadaaga shacabweynaha ama taageerayaasha ku sugan garoonka Hargeysa Stadium ayaa iyana labada tarabuun ee ka kala jeeda dhinacyada bariga iyo galbeedka ayaa aad u soo xudhaafiyay waxaana ay dareenkooda ku muujinayaan wadaniyad iyo taageero aad u dhameystiran oo ay u muujinayaan xulalka gobolada kala duwan ee ay taageerayaan waxaana maanta ciyaarta koowaad ku kulmi doona garoonka Hargeysa Stadium gobolada Hawd iyo Buuhoodle oo la filayo tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliya furitaan u noqdaan waxa ku sugan garoonka Hargeysa Stadium dadweyne aad u fara badan ufuud ka timi dalka Djibouti oo iyana markaasi ku sugan tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ee sanadkan 2020 waxa uu aad u soo jiitay indhaha jamhuuriyadda Somaliland shacabweynaha ku dhaqan iyo waliba wadamada jaarka oo iyagu aad iyo aad iyagu markaasi daawashadeeda indhaha ku haya waxa horteeda maraya ciyaaryahanada gobolada kala duwan ee jamhuuriyadda gobol horteeda waxa ka muuqda xulka gobolka Awdal oo isagu dhinaca bartanka isagoo ku sugan waxa dhamaanba iyagu safan oo hadda istaagay oo wareegii ay sameeyeen iyagu markaa joojiyay ciyaaryahanada gobolada kala duwan ee jamhuuriyadda Somaliland oo 14 gobol ka kooban tartankan ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland ee 2020 waxa la filayaa inuu noqdo tartan aad u xiiso badan maadaama ciyaaryahanada gobolada kala duwan matalaya ay koox walbaaba ay soo adkeeyeen markaas ka soo dhiseen dhinaca tartamada orodada kubadda kolayga iyo kubadda cagta oo dhammaantood bay la soo dardarmeen mas'uuliyiinta gobolada ay ka yimaadeen oo lagu soo waaniyay ciyaar wanaag akhlaaq wanaag iyo asluub suuban waxaana la filayaa in tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland ee sanadka 2020 noqdo mid jawigiisu iyo xamaasadiisu ay aad iyo aad ay u fiicnaato garoonka Hargeysa Stadium haddii aan jawigiisa aan wax ka tilmaamo garoonka Hargeysa Stadium ee caasimadda Hargeysa labada tarabuun ee ku caanka ah waxa hadda soo buuxdhaafiyay taageerayaasha kala duwan ee u soo daawasho tagaya furitaanka tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland oo kala fadhiya labada tarabuun ee kala jeeda dhinacyada galbeedka iyo waliba bariga jawiga garoonku aad buu u wanaagsan yahay waxa ay dadweynuhu ay muujinayaan reereen iyo waliba farxad ee ku dheehan sida ay qayb uga noqdeen inay ka soo qayb galaan furitaanka tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland xulka ugu kooban badan ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta isagoo ku guuleystay waa gobolka Tugdheer oo isagu 3 jeer hantay koobka kubadda cagta ee gobolada jamhuuriyadda Somaliland waxa ku xiga gobolka Sanaag oo isagu ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Somaliland gobolka Murudsheekh ayaa isna guuleystay 2 jeer hal gobolka Sanaag uu guuleystay 1 jeer gobolka Awdalna waxa uu qaaday hal mar oo koobkii ugu dambeeyay ee sanadkii ugu dambeeyay la qabtay soo ka qaaday gobolka Saaxil waxaana sanadkan la filayaa in gobolada kala duwan iyo xulo kala duwan ee garoon ku sugan in ay muujiyaan ciyaar wanaag daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan ee hawada naga daawanayo waxaanu leenahay goordhow waxaanu idiin soo gudbin doonaa marka ciyaartu ay bilaamato sida jawigeeda iyo xamaasteeda iyo ciyaaryahanada ay u ciyaari doonaan waxaana
daawashada aad ka dhargi doontaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee si toos ah u soo tabinaya oo ku sugan markaasi Hargeysa Stadium ama garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. waxaan markana idinku wareejin doonaa warsame si uu isna markaasi uu ciyaaraha iyo furitaanka tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland isna wax ka dhada warsame bal hadda ka waran jawiga tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland sanadka 2020 والله جوجا عيارها قبلة سوماليلاند سنة كان روناهانتي وعجيب يعني داود يا الواحد يسوقنا بو حويا و أنا شحدي لبضة كحود ما أنت كل عياري دونا جران كهرجيسة استاديوم يضو كلهم كانوا يفوت سكودر دونان لبضة قبل هود يو قبل كابوه هذا warsame aad iyo aad baad mahadsan tahay sidaynu wada arkayno waxaynu u joognaa xafladdii furitaanka tartanka ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka qayb qaadanayaan 14 gobol ee dalka uu ka kooban yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa garoonka ku sugan iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada oo u jooga sidii xafladda furitaanka uga qayb qaadan lahaayeen tartankan ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynu waxoogaa yar oo sharaxaada ka bixino xilliyadii uu soo bilaabmay iyo inta gobol ee ku guuleystay iyo inta gobol ee ciyaarta kama dambayska timidba 2002 tartanka ciyaaraha gobolada waxaa markii ugu horeysay iskugu yimid gobolada Maroodijeex iyo Gabiley waxaana ku guuleystay gobolka Maroodijeex sanadkii 2003 Togdheer iyo Sanaag ayaa ciyaartii kama dambaysta iskugu yimid waxaana ku guuleystay xulka gobolka Togdheer oo markiisii ugu horeysay uu noqday 2004 waxaa wada ciyaaray oo iyaguna ciyaartii kama dambaysta iskugu yimid tartanka ciyaaraha gobolada Sanaag iyo Togdheer oo markii labaad oo xidhiidh iskugu yimid ciyaarta kama dambaysta gobolka Sanaag ayaa sanadkaasi isagu ka aarsaday xulka gobolka Togdheer oo isaguna markiisii ugu horeysay ku guuleystay koobka gobolada waa sanadkii 2004 oo xulka gobolka Sanaag uu ku guuleystay markii afraad ee tartanka la qabto oo ahayd 2007 waxa iskugu soo hadhay ciyaarta kama dambaysta gobolada Togdheer iyo Awdal waxaana guushu ay raacday oo ku guuleystay koobka gobolada ciyaaraha xulka gobolka Togdheer oo ka adkaaday gobolkaasi Awdal koobkii shanaad oo la qabtay taariikhdu markaa 2011 waxa iskugu yimid ciyaarta kama dambaysta gobolada Togdheer iyo Hawd oo iyadoo ahayd sanadkii koowaad ay ka qayb qaadatay tartankaasuna waxa uu ka dhacay xarunta gobolka Togdheer ee Burco Alamse Stadium waxaana guushu raacday oo ku guuleystay ciyaartaasi koobkana hantay xulka gobolka Maroodijeex 2016 iyo 15 Awdal iyo Saaxil ayaa ciyaarta kama dambaysta had isla garoonkan Hargeysa Stadium iskugu soo baxay kadib wareegyo safreeb oo ka soo dhacay gobolada Awdal iyo Togdheer waxaanay guushu raacday xulka gobolka Awdal oo markiisii koobaad ku guuleystay tartanka isaga ayaana haatan weli koobkaasi haysta isweydiintu waxay tahay oo quraata gobolka Awdal mar labaad oo xidhiidha tartanka ciyaaraha gobolada mise xul kale oo cusub ayaa mar kale ku guuleysan doona sida loogu kala guuleysto koobka haddaynu yaro eegno Maroodijeex 3 koob ayay koobkan gobolada ay ku guuleysatay 2 koob ama 2 jeer tartankan waxaa ku guuleystay xulka gobolka Togdheer gobolada Sanaag iyo Awdal ayaa iyaguna min hal ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada kale waxaan rajaynaynaa inay sanadkan iyaguna ay noqdaan ama se uu yeesho tartanku weji cusub wax yar kadib tartanka ciyaaraha goboladu si toos ah ayay u furmi doonaan ciyaarta koowaad ee tartankana waxaa lagu furi doonaa sidaynu la wada socono xulalka gobolada Hawd iyo Buuhoodle cabdiraxmaan bataash aad baad mahadsan tahay dabcan garoonka Hargeysa Stadium ee caasimadda Soomaaliya Hargeysa cabdirasaaqow dadweyne aad u tiro badan baa soo buux dhaafiyey waxay tan ka turjumaysaa xiisaha loo qabo tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay sanadihii u dambeeyay aan qabsoomin shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland maalmahana waxaa laga dareemayaa caasimadda Soomaaliya Hargeysa iyo goboladaba abaabulka iyo u diyaargarowga tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo galabta si rasmi ah garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ka furmaya bal hadda cabdirasaaq Ismaanow
dareenka garoonka iyo taageerayaasha haddii la cabirto jawigaba ka waran salaam aad baa mahadsantahay runtii marka la eego diyaar garowga iyo sida dadka reer Soomaaliland kubadda u xiiseynayaan labadii iyo dheeraad iyadoon gaadhin oo 12kii salaadii duhur markii dhaweyd ay dadku hortubnaayeen garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium si ay goobjoog ugu haadaan ciyaarahaasi ilaa maanta duhurkii halkan waxa ku sugnaa boqolaal dhalinyar iyo haween iyo isugu jira daawadayaal oo qura u yimi in ay markaasi halkan si toos ah ciyaaraha uga daawadaan kadibna furitaankiisu waxa uu qayb muhiim u ahaa dabcan dad fara badan oo xiiseynaya gobolada Soomaaliland in ciyaartooyo kala duwan ay yimaadaan Soomaaliland waxay dabcan caan ku ahayd kubadda cagta marka la eego ilaa jamhuuriyadda Soomaaliya waqtigii la isugu jiray oo ay dad ahaayeen hibo u leh waxa maanta halkan yimi oo garoonka jooga raggii gobolka Soomaaliland inta ugu faraha badan lagu safan jiray waqtiyadii 70aadkii iyo intii markaasi lixdamaadkii 80aadkii kuwii ugu caansanaa waqtiyadii 80aadkii markaasi ay ka mid ahaayeen ciyaartooydii waaweynaa ee reer Soomaaliland ayaa jooga oo garoonka qaarkood duurkii maanta ku sii ciyaareenba dabcan dadka faraha badan leh ee yimi waxa ay markaasi u kala duwan yihiin dhammaantoodba si siman u soo dhaweeyaan gobolada kala duwan laakiin haddana uu qof walba gobol hoosta ka taageersan yahay kana jecel yahay inuu noqdo gobolka oo markaasi isagu doonaya inuu koobka hanto dhammaantoodba guul ayaynu u rajaynaynaa gobolada Soomaaliland ee munaasabaddan yimi sida tooska markaasi halkan ugu sugan waxa kale iyagana aad u mahadcelinaa malaayiinka qof sida tooska munaasabaddan si toos u daawanaya ee telefishinka qaranka iyo TV-yada kale ee Soomaaliland markaasi bareefadkaaba sida tooska markaasi munaasabaddan uga daawanaya waxa hadda xiisaha maanta ay leedahay waxa weeye in xul walba uu yimaado iyada oo mas'uuliyiinta qaranka ee Soomaaliland ay ku sugan yihiin munaasabadda oo ay marti ka soo qayb galeen wadamada dariska sida Djibouti oo wasiirkeeda ciyaaraha iyo mas'uuliyiin kale oo la taliya madaxweynaha iyo mas'uuliyiin sare oo ka socda dalka Djibouti ay joogaan maanta sidoo kale ay joogaan wasiirka ciyaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida ee markaasi Ethiopia iyo federaalka mas'uuliyiin ka socda oo ciyaarahan goobjoog ah waxa sidoo kale iyaguna jooga Kafa oo mas'uuliyiin iyo gudoomiye Kafa ee ciyaaraha Afrika iyaguna qayb ay ka yihiin golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa jooga oo dabcan maanta ay farabadni golayaasha qaranka ee Soomaaliland munaasabadda furitaankeeda ay joogaan waxaana xafladdu ay markaasi tahay maanta laba ciyaaro furitaanka xafladda oo madaxweynaha Soomaaliland uu si rasmi ah markaasi munaasabadda u furi doono iyo dabcan markaasi ciyaarta dhex mari doonta labada xul ee gobolada markaasi Hawd iyo gobolka Buuhoodle oo labaduba ah ciyaar wanaag muujiyay ciyaarihii gobolada final la soo gaaray labadooda haddaanu midna koobka qaadin gobolka Hawd ciyaartiisii koowaad kale waxa uu soo gaaray final waxa markaasi hadda uu lagu jiraa diyaar garowga si goor dhow ay si rasmi ah ciyaartu u bilaami lahayd marka dabcan madaxweynaha Soomaaliland uu si toos ah kubadda bartanka taalo oo markaasi u laado oo markaasi ay ciyaartu si rasmi ah u furmi doonto kadibna halkan ayaan si toos ah idiga soo daadiin doona anaga oo idin soo gudbin doona xulalka kala duwan ee magacyadooda line up-ka u safan doona labada xulba oo markaasi maanta ah labada xul ee kubaddu ay ku dhex mari doonto gobolada Hawd iyo Buuhoodle waxa dabcan munaasabadda furitaankeedu oo ay ahayd in madaxweynuhu salaam ka qaato hadda ciyaartooyada ayaa ka bixi doona garoonka gobolada kala duwan ee Soomaaliland oo maalin walba u iman doonaan gobolada ay ku sugan fanaaniinta qaranka ee Soomaaliland ayaa iyaguna goordhow hadii la yiraahdo ku furi doona heesta markaasi ciyaaraha ee Soomaaliland oo munaasabaddan ay qayb ka noqon doonto si madaxweynuhu markaasi kubadda u laadi doono warka markaasi aan idin soo gudbin doona marka ay toos ciyaarta ay u furmaan waxa dhammaan imika sidaan tilmaamay tegi doona goobahoodii xulalkii ciyaarta maray markaasi xul wal oo gobol u safanaya waxa uu maray isaga oo ay u dhan yihiin ciyaartooyadiisii kala duwanaa ee basketka iyo markaasi kubadda cagta u ciyaari doono orodada u geli doona oo dhammaantoodba ay markaasi ciyaartaasi ay si rasmi ah markaasi ciyaartooyada soo mareen kadibna waxa ay ciyaar walba u diyaar garoobi doonaan sidii ay markaasi
ay u diyaar garoobayaan laakiin labada xul ee ciyaari doona ayaa goordhow garoonka ku hadhi doona iyagaana maanta ciyaarta koowaad dhex mari doontaas labadaasi xul waxa aan markaasi si toosa noogala socon doontaan haddii la yidhaahdo sidaan tilmaamay tv-ga qaranka somalilan iyadoo tv-yada kalena ay ka qaadan doonaan goordhow intaan la bilaabin dabcan mar labaad ayaa haddana ciidamada qaranka ee somalilan ee baamboydu ay furi doonaan salaamaan waxaa iminka loo diyaar garoobayaa labadii xul ee kubadda ku ciyaari lahaa garoonka maanta iyagu ku soo hadhi lahaa cabdirasaaqow ciyaaryahanadii xulalka kala duwan ee gobollada somalilan tartanka ciyaaraha gobollada somalilan uga safanayey gudaha ayaa hadda ku xaroodeen si maamuus leh oo milgale ayaa isku dabagaleen iyagoo saf ku jira waxay ku xaroonayaan halka loogu talagalay inay ku nastaan ama dharka ay ku soo beddeshaan waxaynugu soo noqon doonaa labada xul ee ciyaaraha kubadda cagta u safan doonaa ee u matali doona gobollada buuhoodle iyo hawd weli baamboydii ama qaybtii muusikada ee ciidamada booliska somalilan ee baamboydu kamay bixin oo garoonka ayay dhex joogaan ciidamada ammaanka ayaa si wanaagsan u sugaya nabadgelyada iyadoo oo howlwadannada wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha somalilan ay si wanaagsan isku hawshay sidii ay si habsame leh oo aad u qurux badan ay ciyaaraha gobollada somalilan ay u qabsoomi lahaayeen jawiga garoonka haddii dibaddiisa la eego haddii la eego tarabuunadu aad buu degan yahay marka la eego cimilada aad iyo aad ayay cimiladu u tahay mid degan oo aan ahayn mid kulul ama mid qabow waxaad mooddaa cabdirasaaq oo garoonka hargeysa stadium biliciisu inay ku sharaxan yihiin boodhar ay ku sharaxan yihiin dhammaanba shirkadaha kala duwan ee dalka somalilan iyagu ka howlgala oo aad u qurxiya markaasi goobta lagu ciyaarayo ee garoonka kubadda cagta hargeysa stadium dhammaanba mas-uuliyiintii gobollada hadday yihiin barasaabadii hadday yihiin mas-uuliyiintii kale gobollada ayayana waxa ay soo raaceen xulalka gobollada tartanka ciyaaraha gobollada sugan u matali doona si ay u dhiirigeliyaan isla markaana ay u garab istaagaan